maxay ahaayeen xin iyo bin maxay sameeyeen maxay dunida ka bedeleen waatan sheekadoo dhammaystiran xin iyo bin waa laba jiniyo aad u awood badnaa oo noolaa 1000 sano ka hor abuuradii nabi aadam calayhi salaam waxay ahaayeen makhluuqaad awood iyo caqli leh waxaa caqligooda galay kibir xumaan iyo burbur makhluuqaadka xin iyo bin waxay deganayeen dhulka waxay bilaabeen inay isdilaan ee isku faanaan waxay ahaayeen jiniyo ayaga dhexdooda iska hor yimaadeen isbaabiyeen burburna sababeen kii ee xumaantooda ay badatay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo diray malaa'ig si ay dhulka ugu nadiifiyaan makhluuqaadka xin iyo bin waxaa bilowday dagaal aad u weyn oo u dhexeeya malaa'igta iyo jinka xin iyo bin intooda badan waa la dilay qaarna way carareen kuwaasoo ku dhintay sida godadka buuraha iyo badaha hoostooda kadib markii uu dhulka nabad noqday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray nabi aadam calayhi salaam maxay sababta loo sheegay sheekadan ilaa ya maanta maxaa yeelay waxay noqdeen astaan xun kibir iyo burbur qof kasta oo ay qalbigiisa gasho masayr xumaan iyo kibir wuxuu la mid yahay xin iyo bin waxaa sheekada xin iyo bin waxaa laga baranayaa markii xumaanta la daa'imo ay keeni karto halaag dadka hadda jiraan haddii raacaan dabiicadda xun oo ku dhisan masayrka kibirka iyo xaasinimada maalin bay iscuni doonaa isdili doonaa islay doonaa sida xin iyo bin si aad ugu digtoonaado arrintaas qalbigaada nadiifi wanaag dadka kula dhaqan haddii aad sheekada wax un ka fahantay like saar subscribe oo la wadaag asxaabtaada